السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغارت شرفتنا كسر هذا يوتيوب بيج كنا عوا ما أنت ومال وين نوتا فرحة الدونك 7 أب أنظر ما يونايتد 7 بانسلي 0 يا والله بلاك هذا إسكارك سودو هذا فلاقيته كلن كي ما يونايتد يبانسلي كل أحمري أول ترافض أي أصرف في ردونا كل كاس وجوش يكون رعدي كل ما يونايتد تضبط إبر يكون رعدي كلن كاس أو مع الانتهاك شحدي أن فيلين وقصوا قلي كلي waxyar ayuu ka bedelay Bruno iyo Eriksen bas ay isku bedelay inta kale sidii ay ka firin ayuu ku soo galay sidoo kale macallin Ten Hag wuxuu Janis u helay in ciyaartoydiisa muhiimka ah oo dhan uu nasiyo waxa waaye kulamada soo socda oo Crystal Palace iyo Europa League iyo uu nasisto marka waxa waaye natiijo weyn waxa waaye kooxda way ka gaartay kulankaas ay isla faraaqay doona ku soo dhawaada marka like subscribe iyo share ka naga ilmaamna marka kooxda isla fiirina shaxda macallin Ten Hag uu ku soo bilaabay ciyaarta waxay ahayd sidii aan marka hore falaaqaynay afka hore Rashford iyo Garnacho iyo wuxuu ku soo bilaabay Anthony qadka dhexe wuxuu ku soo bilaabay Diasha Eriksen ayuu ka dhigtay Casemiro iyo wuxuu dhaxda gashtay iyo Collier ayuu dhaxda gashtay daafacana waxa Maguire ayaa lagu soo bilaabo Arten iyo John Evans iyo Dalot iyo raggaas ayaa lagu soo bilaabay marka ciyaarta waxa markii ay socotay 16 daqiiqo goolkii ugu horeeyay waxa isla markiiba ku furtay Marcus Rashford goolkaas uu ka caawiyay Garnacho ma horta wixii ka caawiyay goosha masaa wuxuu ahay goolkooda wixii ka caawiyay aan horta marka ciyaarta ayadoo hal iyo eberkaas waxa hadana 35 daqiiqo markay mareysay penalty hele kooxda Man United ayadoo la isdhahayo penaltygaas waxa ku lamaysan doona Marcus Rashford oo maadaama ay intaan abaar ay haysay wuxuu siiyay Anthony rigooradii Anthony loo dhiyo kaale iskaarag kooxda waxa waaye meesha waxa ka cad Man United ciyaartoyda in isku faraxsan yihiin in istaageeraan in support gareynayaan waa wax loo baahan yahay marka penalty Anthony loo dhiibay sidii loogu dhiibay u dhaliyay kadib waxa waaye 35 daqiiqo markii laba eber marayso Barnsley koox iska yar waaye waxa waaye waa inay jabeen isla markaa isku dhaxyaaceen tusbax go'ay camal ay baasha noqoto markii dambe Garnacho asigana waxa waaye 45 daqiiqo kan bid markii la mar rabo oo +2 kan bid labada daqiiqo lagu daray kan macnaha kan bid koowaad oo goolkiisa saddexaad ku dhashay marka waxa waaye hadana markii kan bid laga soo laabtay hadana 3 daqiiqo kadib waxa hadana goolkiisa kale oo hadana dhashay Garnacho meesha ku labay Rashford goolka hadana gool shanaad dhashay kadib Eriksen Bruno Fernandes iyo waxa la soo geliyay iyo Ugarte iyo Rabaweyna la soo geliyay iyo Delight la soo geliyay kadib waxa waaye Eriksen laba gool oo nadiif ah waxa iska sii daran goolash ah cun Zirkzee hada ugu talagal lahay laba gool minimum uu dhali kari asiga waxa waaye ninkaas waxa waaye ku bad mid kale Diasha Amro ninkaas u dheelaa waa kaal iska arag marka hadii waxa waaye ciyaarta kooxda Man United waxa la leeyahay niyad dhis weyn ay u tahay marka wixii ka bilowdo kooxda waxa waaye wadadii guusha ay cagta saartay Southampton 3-0 gool lagama dhalin kaliishida ku bixin Barnsley 7-0 gool lagama dhalin waxa ku bixin kaliishida ku bixin marka qodobada ugu muhiimsan ee ciyaarta hadda ugu gudubno goolasha iyo ciyaartoyda dhalisay qodobada ugu muhiimsan hadda asla fiirino horta waxa waaye guushi ugu weyneed macallin Ten Hag uu gaaro intuu joogay kooxda Manchester United waana markii ugu horeysay oo ku macnaha wax oo ka badan 4 gool oo macallin Ten Hag ku raaco kulankiisa ugu badnaa goolasha ugu badnaa ku badiyay waxay 4 gool 4-1 ee Argentina marka hadda waxa leeyahay 7-0 waa guushiisa ugu weyneed waxa waaye saasoo kale waxa leeyahay Rashford Garnacho ama Diallo oo asiga naftiisa gadaal laga keenay oo cilil la asnay kulligood inform waa garbaha kooxda Man United oo dhan waxa waaye mid kale waa ka daran waxa la isdhahay Rashford kaliita labadan kale Rashford hada waxa waaye laba kulan wuxuu maraya 3 gool iyo 2 assist Garnacho wuxuu maraya laba kulan wuxuu maraya 4 gool 3 kulan wuxuu maraya 4 gool iyo 3 assist uu maraya Diallo sidoo kale kubad abuuristiisa caadi ma marka waxa la leeyahay seasonka wuxuu ku bilowdeen garbaha kooxda Man United si aan caadi ahayn Anthony bisi xogaa ka taala asagana waxa waaye waliba kulanka hadda Anthony goolal badan oo dhali karay oo cunay nimankan kale aan lahayn ee dhashalahayn oo cunay hada halkaas ugu gudubno Rashford iyo Garnacho iyo Ahmad Diallo Eriksen ay ma ninkaas miisaanka culus waa wallahi ninkaas xogaa waxa waa daa ka daba timid ma aanay ninkaas waxa aaminsanaa Bruno Fernandes inuu ka laacibsay leesma wala kubad simbara la dheeraa baasi simbara la dheeraa
gool iyo qajajac raadiskeedii iyo assist raadiskeedii iyo waxaas maba ku jiriyo simple ayadoo ay u imaanay goosha idaa soo raadsanaysa labada gool soo ku dhali asoo iska taagana loo baasi loo soo dhigi cag camal baas camal uga dhali marka ninkaas miisaanka culus waa nin soo banooniyada haddana u dejinaya war ninkaas waa ka yaabani qad ka dhaco kooxda Man United Ugarte iyo Bruno Fernandes iyo Maino markii laga soo reebo ninka afraad ugu muhiimsan ninkaas waa Eriksen waa inuu yaa aaminsanaa ninka Samir iyo Mount waxaan qashka inuu ka horeeyo aaminsanaa ninkaas miisaanka culus waa sidoo kale juniorka yarka Toby Collier yarkan la left back waxa la ka dheelay caadi asoo left back ka dheelay wuxuu ahaayba shub ahaayba mar dhaxo soo buuxina mar gooshiisa difaacana kaaliska arag marka ninkaas waxa waaye mar dhow waxa la leeyahay waxa rajo laga leeyahay inuu line up ku soo biiro kooxda ninkaas marka waxa u rajaynaynaa sida Maino iyo Garnacho iyo Rashford iyo teamka ugu soo biiray inuu ugu soo biiro oo noqdo nin macnaha ciyaarta mar walba lagu soo bilaabo sidoo kale ciyaarta waxaa kulankiisii ugu horeeyay oo full ku soo bilowday Manuel Ugarte awal waxa waaye gadaal laga keenay 60ka 70ka 80ka la keenay 45ka la keenay hadda laakiin waaba lagu soo bilaabo qadka dhaxana caadi u xirtaba looga ku xirtay banooni kasto Casemiro iyo iska baxal la wala fasax Eriksen banooni kasto Barnsley soo dhum macnaha soo wararto asaga ka badbaadinay ninkaas marka waxa waaye miisaanka cusub waay kubadda si fiican ayuu dhamanka uga soo qaaday si fiican kubadda noogu dhisay oo ciyaartoyda hore afka hore joogto uu kubadda ugu gudbinay marka ninkaas waxa waaye ala leeyahay kooxda Man United seasonkeeda wax weyn ayuu ka bedeli doonaa sidoo kale waxa lama ilooban ninka la leeyahay ishak Diego Dalot asagana si fiican u dheelay kaaliska arago ah marka waxa waaye kooxda Man United haddii kulanka Crystal Palace ay soo socdo ay raayso Europa League ay raayso nimankaas waxa ma loo baqay anfaad waxa 5 games hadii 4 win ay ka hesho ma sha Allah marka ani macaan tanaag waa aaminsanahay awal waxa ninkan oo aaminsaneen dhaawacyadaas leebis oo macnaha ninkan saameyn ku yeeshamayna ninkaas waxa waaye nin oo hadii ciyaartoydiisa ay u joogto line up-kiisa saxda u joogo ay dhaawacyo ay ka badbaadaan ninkaas natiijo fiican oo keenaa laakiin waxa kooxda Man United ku dheelay dhaawac waan siisaka waxa dadka naga qasay dhaawac waa marka Man United waxa waa isbuucan waxa noo daran anaga cabitaankii 7 up anoo shidan cabitaankaas ka shidan United oo 3 gool iyo wax ka badan ku baas goorma ugu dambeysay oo banooni qurux badan soo bandhigtay hadana waxa kaaga daran 7 gool waxa kaaga daran banooniga soo bandhigin ilaa ku dhaartay banoonida soo 10 gool waa dhali karna xalay 10 gool Man United waa dhali kartaa kula Zirkzee 2 gool oo cunay Anthony 2 gool oo cunay markii ugu yaraato Bruno gool oo cunay oo asoo shuudi karo oo isdhahay baas fiican dhig oo cunay marka gool badan cunay saas marka waxa waaye oo ku qanacsanahay 2 games 10 goals scored clean sheet ma sha Allah ciyaartoyda dhan waa dheeleen kaaliska arka marka akhyaarta marka waxa waaye halkaas ay ku soo gabagabeynaa falanqaynteena kulanka Man United waxa insha Allah subscribe iyo like iyo comment noo saara channelkan hala support gareeya sidoo kale waxa adhow la soo gelin doonaa 4 saacadood 3 saacadood kadib ciyaartay marka fiirsanaynay reaction-keena wixii goolasha iyo dhashay iyo reaction-keena ay soo gelin doonaa inta kulankan iyo kulan dambe inta ka gaarayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh 7